sokorta in ay tahay dilaaga ugu horeeyo daraagiska ugu xunna inay tahay qofka rabo inuu caafimaadkiisa ka shaqeeyo ama jiim aado ama maartay caafimaadkiisa dhinac walba gaas dhiikar sokor wax walba rabo inuu ka shaqeeyo waxa ugu horeeyo inuu iska daayo ay tahay waa sokorta. bismillaah saaka waxaan rabnaa inaan ka hadalno insha allah saameynta iyo dhibta ay leedahay daraagiskan la yiraahdo sugar waxa weeye wuxuu aad u dhibayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan adduunka si aan looga isticmaalin Soomaaliya looga isticmaalaa adduunka lagama isticmaalo sokorta qaabka anaga u isticmaalo. waxaa laga yaabaa qofka inuu nus kiilo iyo kiilo gato oo sokor organic ah dabiici ah inuu guriga geysto. anagana waxaa laga yaabaa 25 kiilo 10 kiilo 100 kiilo in guryaha la dhigto la yiraahdo caruura la siinaya. marka dawlad naga qabanayso oo naga xadidaysana ma haysano ganacsato wixii naga xadidayso ama noo maartay naga yareynaysa ma haysano. marka qofku waxa laga rabaa shacabku waxa laga rabaa iyaga inay iska daayaan suntaas oo qof walba la dhibaataysan yahay. suntaas aan ka hadlay ama daraagiskaas aan ka hadlay waxa laga qaadaa xanuunyo aad u badan. waxaa kamid ah waxay keentaa sokorta dhiikar sokor maartay xididada inay xirmaan cholesterol subag wax Soomaali u yaqaanaan cholesterol waxyaalahaas oo dhan maartay waxa sokorta keenta lafaha inay baaba'aan ilkaha inuu baaba'o aqliga inuu tago qofkana daraagiskaas wuxuu u sii gudbayaa daraagis kale. waxyaalaha aan ku ogaaday inay daraagis tahay u fiirsada caruur siiya sokor ama chocolate ama nanac joogto ah mar kasta haddii aad soo iloodid ama wax dhacaan cunuga si kale wajigiisa noqonaya. qof kasta oo yiraahdo sokorta waa iska deynayaan iskama deyn karo in la karantiilo moogi. marka dib fara badan ay mujtamaca ku haysaa qofka rabo inuu caafimaadkiisa ka shaqeeyo ama jiim aado ama maartay caafimaadkiisa dhinac walba gaas dhiikar sokor wax walba rabo inuu ka shaqeeyo waxa ugu horeeyo inuu iska daayo ay tahay waa sokorta. dhakhaatiirta maartay meel walba ay joogaan adduunka waxay ka wacyigeliyaan dadka inay sokorta iska daayaan. ma ahan in ay yareeyaan inay faraha ka qaadaan. haddii la yareeyo xanuunka sidii iyo si ka badan uu sii noqonaya. waa sokorta cunuga waxaad tijaabisiin aad ka joojisiin bil uu ka maqan yahay aad ku celisiin uu xanuunsana qandha karkarinayso cunug aad ka joojisa hadduu dhinac u leexdo uu sokor soo cuno ama la siiyo isla markii qumankiya ka caayo hergaba ku dhacayo habeenkii ma seexan karo habeenkii oo dhan gooryaan iyo maartay qandho iyo maartay quman iyo dhibaato fara badan. samboorka iyada sabab number 1 u ah dadka samboorka la dhibaataysan ogaada sokorta number 1 ah. marka insha Allah intaas waxaad ku fahamtiin casharkaas sokorta in ay tahay dilaaga ugu horeeyo daraagiska ugu xunna inay tahay. marka qofkii xaaraan ka dhigaayo xalaal ka dhigaayo ani ima taalo laakiin waxa idin sheegayaa waa dilaa qarsoon oo ummadda Soomaaliyeed lagu baabiinayo. sokorta iska ilaaliya waa wax xun waa wax dhib badan aad iyo aad u xun waa daraagis dadka aan laga jari karin waxay ka xun tahay qamrada iyo sigaarka iyo qaadka saas loo socdo insha Allah. wassalaamu calaykum.